hore waxaan uga hadlay Yaasiin TV oo aan sheegay inaad ciyaar kasta ka daawan kartid haddaad tagtid qaybteeda live eventska. Okay, hadda waxaan live ciyaartan oo Inter Miami uu dheelayo Messi. Haddaba ciyaartaasi markaad qaybta live-ka aad ka daawatid Yaasiin TV kuma jirto. Maxaa xal ah haddaba maanta waxay nii wadaa website-kaas oo la yiraahdo study.yalla-shoots.io. website-kan waxaad ka daawan kartaa ciyaar kasta oo aad rabtid. waa website carabi ah, qayb ingiriisina uu leeyahay. marka website-kan waxaad ka heli kartaa ciyaar kasta sida Yaasiin oo kaleeto si ka horumarsan ayuu u shaqeynayaa website-kan. haddaba ciyaartan hadda live waa ciyaarta markay live tahay halkaas guduudka ah ayaa boodboodaysa. ciyaarta markay live ahayna oo ay maalin kala dheelaysana oo amaba aysan waqtigeeda la gaarina timekii ay soo gelisay ciyaartii iyo waqtigii la dheeli lahaa ayuu halkaas kugu sheegaya. Okay, haddaan ku dhafano ciyaartan live-ka ah oo Inter Miami caawa uu dheelayo Messi semifinalka. tusaale ahaan waad ku dhafatid kadibna waa wadaysaa meeshaas ugu hooseysa ayaa taabanaysaa. Okay, meeshaas ugu hooseysa ee ku qoranta Ingiriiska qaybtaas kore ayaa taabanay Ingiriis daaratid, Spanish daaratid sidoo kale. Carabi waaye marka ugu horeysa ciyaarta ay ku baxayso. marka carabiga waad ka bedelaysaa oo waxaad ka dhigaysaa Ingiriis. hadda Ingiriis rabtid, hadda Spanish rabtid, Spanish ka dhiganaysaa. xayisiinta ciyaarta iska qaadaysaa si toos ah ayay ciyaartu kugu bilaabanaysaa. hadda ciyaartadan ku dhufto codkan ka xirayaa sababtoo ah copyright iyo waxaas inay qabsato ayaan diidayaa. play baan dhahayaa. waxayna ku xiran tahay internetkaaga xawaarihiis. haddii internetkaaga xawaarihiis uu sareeyo ciyaartu si toos ah ayay kugu soconaysaa oo kaama istaagayso. hadda hal gool baa laga dheliyay Inter Miami oo ujeedaan. marka haddaba website markaad ka daawanaysid xayisiimaha jira oo xayisiinta website-ka qaabka la iskaga xiro. haddaba sidoo kale muuqaalka waxaan raacsiinayaa sidee iskaga xiri kartaa xayisiimaha website-ka uu leeyahay. halkaas saddexdaas dhibcood ah ama saddexdaas alif ee isdul saaran xariiqaha ayaa taabanaysaa haddaad ka isticmaalaysid browserka internetka ee Samsung-ka. meeshaas ay ku qoran tahay ad blocker ayaa taabanaysaa. hadda 13 xayisiin ayuu leeyahay website-kan ama ads oo naga xiray. haddaad ad blocker ku dhufatid kadib kuwan ayaad soo degsanaysaa mid ka mid ah. kuwan ayaa soo degsanaysaa oo xayisiimaha xira. marka hadda waxaan noo degsan taas ay ku qoran tahay adgaarkaas ayaa noo degsan. haddaba haddii aad rabto inaad degsatid waa wax aad u fudud, kaliya meeshaas downloadka aad taabanaysaa si automatically ayuu install kugu dhihi doonaa. kadibna adigu maxaad sameynaysaa halkaas unbaad ka furaysaa ka xiraysaa si xayisiimaha uu kaaga xiro. sidoo kale adgaard wuxuu awood u leeyahay inuu kaa xiro website kasta booqanaysid xayisiintiisa. hadda anaga maanta website-yada aan booqanay 34 ads bay lahaayeen. marka intuu kugu soo saarayaa inta website aad booqato xayisiimahooda uu kaa xiro. marka halkan wuxuu kaa caawinayaa in aad website kasta aad booqatid xayisiintiisa laga xiro oo si nadiif ah aad u daawatid, kaas oo ku tusinaynin wax ads ah. hadaba muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku saabsan yahay.